khudbadii salaadii jimce ee maanta masjidka huda ee magaalada Boorama Sheekh Maxamed Saciid Saawer waxa uu ku soo qaatay arrimo dhowr ah waxaana uu ugu horreyn isu taagay fadliga 10 maalmood ee bisha Carafa waxaana uu muslimiinta ugu baaqay in la iscaawiyo la iskuna gargaaro waxaana isagoo arrimahaasi ka hadlaya uu yidhi xadiiska balad u fiirso walaalayaal wuxuu yidhi nabigeenu salawaatullaahi wasalaamu calayh afdalul ayaam yawm Carafa maalin waxa ugu fadli badan maalinta yawm Carafa la joogo waa berri Soomaa waa berri yawm Carafa waa maalinta ugu fadli badan maalin ka fadli badan ma jirto maalintaas xadiiska Aisha ay warisay waxay sheegaysaa ma min yawmin akthara min an yu'tiqa Allahu fihi 'abidan min an-nar min yawm Carafa ma jirto buu nabigu yiri maalin ka badan oo adooma Ilaahay naar aw ka xoreeyo maalinta Carafa maalin ka dad badan ma jirto waa maalinta naarta dadka xoreeyo Ilaahay umada u ka xoreeyo maalin kasta laakiin maalinta loogu badan yahay ee dad naar laga xoreeyo ay u badan yihiin waa yawm Carafa wa innahu la yadnu Ilaahay waa u soo dhawaada thumma yubahi bihim al-malaa'ika malaa'ikta ayuu ugu faana adooma wuxuu yiraahdaa fa yaqul ma arada haula kuwan maxay u jeedaan bal adoomahaygan eega unduru ila ibadi atawni shukhsan ghubra bal adoomahan eega yimiday iyaga oo basaasan iyaga oo boodle iyaga oo labayka allahumma labayka le iyaga oo adduunyada ka yimid laba go'sita malaa'iktu ilaahay kulay bal adoomahan eega maxay doonayaan ilaahay markaas uu oranaya waa inuu dambi dhaafay subhanahu wa ta'ala waa inuu dambi dhaafay walka ilaahay ka cadeynaya oranaya waa inuu dambi dhaafay waxaan markaati niga dhigay inaan uu dambi dhaafay waxa la oranaya hebel baa ku jiray nin saasoo kale oo muxuu rag fiicnaahayn waa loo dambi dhaafay wala isku wadaraya saas culimadu waxay qabaan culimadu xajka in lagu dhaafayo xitaa xuquuqda bini aadanka xuquuqda aadamaha oo lagu dhaafayo ilaahay waxa la adoomaha baa adoonkii xuquuqda kugu lahaa markuu xajka ka aqbalo maalinta qiyaamaha ayuu si gaar ah u raali gelinaya wax kale u siinaya ila isaga Soomaa subhana wixii adoonka uu ku lahaa ilaahay baa oranaya war ana ku hagaajin iska dakaas maxaad u malayn وحتى كبائر تول قدافة حج وكي حديثك أها أظن كل حصان نقدر أخرج حج لقى أقبله كيوم ولدته أمه سيد ما أنت هو يدي أي دشة أو كله المدرسة بدي بيقولي ساسك حصان نقول يا قف حتى تبعاتك ولا قدافة يا إلهي بقى سكر أورالي قلني وحي كلها وكهرباء سبحانه وتعالى koonfur iyo dhinaca Soomaaliya ayuu Sheekh Maxamed Saciid Saawer u kacay waxaana uu isdul taagay arrimaha maalmahan dambe ka soo cusboonaaday magaalada Muqdisho ee dhinaca qabuuraha dib loo qodayo waxaana uu arrintaasi ku tilmaamay war ummadii maanta waxa weyn adduunyayna khariibta waxa loo tanaafusayaa ee loo barotamayaa ee la isku haysay waa adduunyo xitaa ku dadka aakhirada waxa loo faqayo xabaalaan xamarka iyo xamar la faqay subhanallah xabaalaha waxa loo faqayaa وحوي بوا كان هذا يوي كان ما هذا يوي ولا دافع كوي هذا اللي ولا دافع ولا اللي حنايا ريبل بين نقدين لكن حبال فقيو حبال فق الشريعة الإسلام كم جرتو سديد بلودنا يلا فقه كره حباله والشريعة برضه فيرس وحكم سديد مالها الفقيه وحكم قفك هذه الآس استجوا أن لقوا تكنين أما أن قبلة أجيدين بلو فيرس هذا oo aan isbedelin wal faqiyade oo de mesela maalintii allabadi saddexaad oo kala qibladi looma jeedinin lama beerin soo mad garan ya laguma tukanin waa la faqaya oo de degdeg ah waxa kale oo la faqaya xabaalaha baa leeyahay hadii lagu aaso waa meel tirsan hadii lagu aaso meel qof bili aadani aw leeyahay balakada meel dawladeed maaha meel bili aadan leeyahay hadii lagu aaso oo ninka ku dhaa beerti ku dhaa waraab kale aabaha iga beerta iga muxuu ahaa iga xabaasha iga qad beertaydi weeyaane waad ka faqaysaa hadii kafanka lagu aasayna oo ha kafan de xariir ah ilaa walama ogolay xariirta ma la qaataa adduunyada rag waa ka xaraan leen taana waa la faqi waa markuu isbedelin de moogta hadii mara oo soo xaday lagu kafana waa la faqi haddii maal ku dhacay markii la aasayay maal fara badan oo qiimo leh ku dhacay xabaash markaasuu yiri waxa iga dhacay muxuu ahaa saacadaha ba iga dhacday ama lacag ba iga dhacday halka waa la faqaya
bal meel la faqay waxa kale la faqaya meydka hadii daad yimaado oo daad aw qaadayo daad aduu qaadayo waalidkaaga iyo waalidka oo daad qaadayo ama xabaashi daad ku dhaco meeshii waa laga fiqiyo meel fiican baa la geynayaa meel kale oo laga fiqi kara ma jiro meel halka in laga faqaya wadku dawladda ahayd Soomaaliya dawladda ahayd ayaa la markaade fadwada la soo saaray waxa la yiraahdaa fatwa siyaasiya nin sheekhu un baa fadiyado yiri muxuu ahsana la jeefiyaan banaan على وجيس بلا ربلا نكاس بلا وحوي ومشكلتها صعوتها فتوى سياسيه نكاس وحو صاري فتوى سياسيه فتوى شرعيه ماها فتوى الشرعي وحوي ودين توافقسن مدوح على فتوى سياسيه بلا وفتوى سياسيه دولة غورا اللي قليليا وضد بدن وكنت كون بلا ينك بدن بلا ولا بركع حبال بلا بركع dadkii bala baraka awal waxa la orjiri dad baa la barakiciyay xabaashi baa la barakicinaya barakacay ugu reeway نبى واحد ديارك ساري كدوري بلا داوطان هو يدي بكسري ديارة مدحوينها زوملا زود دقي إسناقاس كده في جدو كيني هو يدي ودول بالكو أصلت وين شوي دار نبي مدحوين وكاس زود دقي أنا وري هو يدي قاضي لفيه قاضي يبودي وهذا اللي بركع يدي بركع منين أنا روح نكبقيا إن هذا اللي قد يضوم ميل كلا اللي قفقه sheekh maxamed saciid saaweer hadalka ayuu sii watay waxaana uu istul taagay mushkiladda baahsan ee baraha bulshadu ay ku hayaan guud ahaan bulshada waxaana isagoo bulshada uga digaya saxoon isticmaalka baraha bulshada uu yidhi maradu wataan ku asturanay Soomaa ilaahu cawradina haynaga qaadin qofku markuu dharka iska qaado oo cawradiisa muuqanaysa dadka isqabaay waxay isku yihiin dhar bay isku yihiin ee way asturayaan waa wax sir ah waa nolol gaar ah oo sir ah nolosha sida ahayd ayaa maanta media la soo dhigaya laga warramaya oo la share gareynaya oo laga warramaya horta wax laga warramo maaha laakiin waa waxa la og yahay waa waxa ummadeena maanta qaribtay yaana asturaadi iyo qiimihi halkaas u maraya waxa lagu mashquulaya oo maanta lagu jabaya waa maalmii khayrka lahaa waa yaana ilaahay wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وحل الله وحدك هذا شنا إلهي وقرية سبحانه وتعالى ورمال مهني مالمه وحلق الشكيري ما ورمضوا قيم كيدو مركو بابا مركا يعني وحا إنو نولا واقي هوري قريها إنو نولا أو دادكو حقا لغو نولا قريها مركا أرنتو كشوالا بربوريا عبد الله علي يوسف هون كيبل تي في بورما